wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Ali Maxamed Waran Cade ayaa sheegay in Itoobiya ay dhawaan si rasmi ah u furayso xuduudka u dhaxeeya Somaliland iyo Itoobiya kaasoo muddo u xidhnaa arrimo ku saabsan dhinaca amniga. Itoobiya waxaan sii aragnay wasiirka arrimaha gudaha Itoobiya oo ku wada hadalay waqtiga la furayo xuduudda waxaan sheegay dhinaca immigration mooyaane inay intii kale oo dhan ay soo dhameeyeen marka xagga immigration ijraadkii wixii ku haray fiisooyinka ay imika wadan si dhaqso ah loo furi doono haddii la yiraahdo. wasiirka galabta ku soo laabtay dalka kadib safar ugu maqnaa dalalka Kenya iyo Itoobiya waxa uu ka waramay ujeedada uu la xiriiray safarkiisaasi. waxaan u gudbay Nairobi oo runtii aan u tagay arrimo quseeyo wasaaradda iyo xagga nabadgelyada ayaan u tagay waanan si fiicanna way nooga soo dhamaatay marka runtii ilaahay baa xamdi leh ilaahay waxaan ugu xamdiyeynaa nabadda iyo xasiloonida aan haysano runtii intii aan Nairobi joogay waxa laga yaabaa intaan Hargeysa joogay inaan chance buu helinaan daawado TV-yada kuwa Soomaalida iyo kuwa caalamkaba laakiin markaad aragto waxyaabaha inagu xeeranaya caalamka waxa ka taagan runtii ilaahay wax loogu xamdiyo weeye dunida waxa ka dhacaya waxyaabo aad iyo aad ku yaxgelinaya wala socotaan waxa ka dhacaya Iraq wala socotaan waxa ka dhacaya Suuriya wala socotaan waxa ka dhacaya Lebanon iyo meelo kale oo badan sida awgeed waxaan aad iyo aad runtii ula yaabaa mararka qaarkood markaan dadkeena qaar kamid ah ka maqlo nabadgelyo darra jirta dalkeena ayaan talo miyaanay ilaahay ka baqarin ama inay ka abaalka dhacaan nimcada ilaahayna siiyay marka waxaan leeyahay runtii waa wax ilaahay loogu xamdiyo. Khalid Xabsi, Kalsan TV, Hargeysa.